dadka jooga magaalada weydil qof walba telefonkiisa fiiriya wajigiisa oo milmaya ayagoo dhammaan isticmaalaya kaliya hal filter dadka weydilna waxaa ka soo haray kaliya ninkan lagu magacaabo Jack iyo gabadhaani qof waliba oo isku dayo inuu isku fiiriyo telefonkan oo milmaya oo xiglayaaba telefonka kaliya waxaa ka soo haray Faraanti ama saacad uu wato kaliya xariifku soo baxay wuxuu imanaya kaniisada markii irida laga furno wuxuu ku dhaw wili manoosha adiga markaas Jack wuxuu bilaabay baadirigii inuu hamar burburiyo iyo xataa dadka meesh ku jira weydil hamar ay qasaarayaan kaliya waxaa soo haray gabadhan iyo isaga kadib ay labadooda ay go'aan ku gaarayaan inay isguursadaan ayagoo ku jira kaniisada isna guursanaya mar soo weeraraya FBI-dan ayagoo dhamaantood loo soo diray inay qabtaan kaliya Jackna markaan uu iska baashalay qoorta isku wareejinay oo raaxay ka cadahay kadib ay taliye wuxuu qabanay bastoolta wuxuu ku dhahay halka ka dhaqaaqin Jackna markii wuxuu qaaday mikrofoonkan wuxuu ku dhahay waan is dhaqaajinay cidna ima taaban karto isagoo sidaas ku qeelinay waxa mar meesha soo galay xaaskiisa wuxuu dhahay wili miyaad noo shaadiga waa uu ka naxaya Jack aragtida uu arkay gabadhiisa qoftan markaan qabriga ay ku baxay masiir ay haween ku soo cararaysa Jackna wuxuu soo xasuusanaya markii labadooda la cunayay qaabkii uu dhintay labadooda ban waxa cunay maskaan Jackna uu leeyahay soo laabashada soo laabatay xaaskiisa Jack ayaa wuxuu dhahay adiga kuma aan fikirin xitaa sideedoo kale soo laabanayso gabadhii wadatay dharka cas waxay isku dayaysaa in aragto markaas wuxuu dhahay qoftan aniga ay qabaan xaaski haweenaas gabadha waxay dheesay ma guurkan ma dhicin waa been sababta hooyaday lama qabo Jack ay hal mar xanaaq dartiisa fuuraya isagoo kadibna uu baqaya markaas ay yaabaan dadka ka socday FBI-da waliba ayagoo soo laabanaya sidoo horena ku soo laabanaya gabadhina hooyada sidaas ay ku helaysaa